gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Aadan ayaa maanta soo xidhay tababar muddo 2 cisho u soconayay qaar kamid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Burco aqoon kororsigan ayaa waxa lagu baranayay doorka warbaahintu ku leedahay arrimaha doorashooyinka oo la filayo inay dhawaan dalka Soomaaliland ka dhacaan tababarkan ayaa waxa bixinay rugcadaaga saxaafadda Yunis Cali Nuur iyo isuduwaha wasaaradda warfaafinta gobolka Togdheer Yuusuf Ibrahim Warsame mas'uuliyiintii halkaasi ka hadlay ayaa wariyaasha halkaasi ku sugnaa kula dardaarmay inay casharada ka barteen tababarkani ay uga faa'iideystaan sidoo loogu talagalay waxaana hadladoodii kamid ah sida tan aqoon ku saabsan sidii ay dadka ay u yihiin adeegaha sida ugu shaqeyn lahaayeen 2 casho ay halkan fadhiyeen mawduuca ay qaadanayeen waxa weeye mawduuc aad iyo aad u muhiim oo xasaasi ah oo u baahan qofkii wariyuhu ama qofka saxafiga ah isaguna uga badbaadin lahaa bulshadana uga badbaadin lahaa aaladda uu gacanta ku hayo mawduucaas wuxuu ku saabsan yahay doorka ay warbaahintu ku leedahay doorashooyin mawduuca waxa soo qaban qaabiyay urur wadani oo rag halkan fadhiya ay ka mid yihiin oo leeyahay kabaal ayaa soo qaban qaabiyay iyo jaaliyad reer Suudaan oo iyaduna inaga asaasiga ah ee u baahan taxadarka iyo dhexdhexaadnimada iyo mas'uuliyadda culus sidii qofka saxafiga ah habkii uu mari lahaa uu shaqada u hayo mas'uuliyadeeda u gudan lahaa annaga ayaa soo qaban qaabanay saxaafadan in halkan seminaarka lagu qaato waxaan ugu kalifay waxaan u baranay baahayaha ka jira dalka maanta ugu badan tusaalaha ugu qiimaha badan aan ka faa'iido aad u jeclaystay waxa xaqiiqda waxay noqotay wax qofba soo yaqaan dawraalayna tusay halkaasalayna ka tusay walayna wajuucal qof walba waxaad aragtay ninkii suxufiga waxa laga rabaa qof walba inuu ku qanciyo sidii isagu u qaadan kari lahaa ururka kabaalinta baa mahadnaqaya aan arkay inay muhiimad weyn leedahay tababarada ama seminaarada sidoo oo kale ah aqoon waa la haydano waan huba laakiin aqoontii ma la sii kordhiyay marka aad iyo aad baan idinkana ugu faraxsanahay ka qayb qaadashadiina iyo ina waqtigiina soo horteen iyo ina runtii doodo kulul ka gasheen doodii ugu adkaan arkay waxa Facebook ma medium sama waxay qiraya kooxdan in ahaan koox fiican wadanayna sawir xiisayna samaanta oo sheegay inay wax badan ka bedeli doonaan qaabkii ay u shaqeynayeen waxa la idinka fadhiyaa ee aan tacab khasaar ahayn ee aniga iyo gudoomiyaha iyo cid walba ku farxi doontaan waxa way bariina idinka muuqato tababarkii aad qaadateen aad iyo aad ugu mahad celinaya macallimiintii tababarkan guud ahaan ba hageysay oo ugu weyn yahay Yunis Cali Nuur Yuusuf Ibrahim Warsame iyo saraakiisha ka socota hay'adda Kabaal aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan kulan noocan oo kale iskugu nimaadno oo aan kaga faa'iideysano aqoon meeyro hawl kara aan xataa dhaqanka saxaafadda kale ee gobolada kale aan xataa wax ku weydiinayn kula dhimanaya kula soconaya jecel inay wax soo tabiyaan waliba wax wanaagsan maantana haddii tababarkan ay ku darsan intii hore aan aqaanay waxaan ka filayaa wax wanaagsan baan ka filayaa waxaan kula talinayaa in horta casharadan iyo duruusta la idin siiyey rugcadaaba idin siiyey wax wanaagsanna kale waan u malaynayaa in way u badantay inaad ka faa'iideen waanan arkayaa intii ka qayb gashay waa intii ugu badnayd ee gobolka joogtay inaad ku dhaqantaan horta aanaydu halalaadin 2 cisho Jaamac Saleeban Cumar warbaahinta SBC magaalada Burco.